بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. magacaygu waa Xuseen Macalin Cabdi Shakhsan. waxaan rabaa inaan halkan ku duubo gabay magaciisa la yiraahdo Dhibca Roob. gabaygan wuxuu soo baxay habeenkii Khamiistii bisha 9 ahayd doorashadii kadib bisha 2017. gabaygu laba qaybood weeye. qaybtiisa hore habeenkaas soo baxday, qaybta dambana waxay soo baxday maalinkii Khamiistii bisha 9 ahayd bisha 2017. gabayga wuxuu ka hadlayaa, wuxuu u hambaleynayaa baarlamaanka Soomaaliya oo doorasho taariikhiya dhigay, oo kuwaas oo shacabka rabitaankoodii ka mid dhaliyay ama rabitaanka shacabka ka turjumay. gabaygana magaciisa waxaa la yiraahdaa Dhibca Roob. dhibcahaas roobka oo ula jeedo baarlamaanka Soomaaliya ku matalayo. sidoo kale gabayga dhexdiisa waxaa ku jirta dhiil caana iyo qaalin dhalaysa. haddaba dhiisha caanaha waxay tahay dhiisha caanaha oo la jeedo siyaasiyiinta qaar oo ku kalsoona inta yar ay xilka hayaan inay wax musuqmaasuqaan. hasha dhalaysana aan ula jeedo qaranka Soomaaliyeed oo haddii ay dhisaan inta yarta ay musuqmaasuqayaan iska daayaan ay dhisaan qaranka Soomaaliyeed ay ka dhigan tahay hashii dhalaysay oo aad haysanaysay kuu tarmaysa caanaheedana ku dhargeysid. marka waad garanaysaan dhiil caana ah ama caano mar aad cabtay inta ay kuhayn karaan calooshaada ku jiri karaan iyo hal aad adigu iska leedahay ee kuu tarmaysa, farqiga u dhexeeya. gabaygii oo bilowdayna waa kan: dhada gabayga waataan ka tegay dhihiitinkeediiye, wixii dhacay ayaa igu dhashaye kuma dhawaaqeene, bal dhegaysta cawaan dhexgeli oo dhambaalayaye. iyagoo dalkan dhacanyaho nacabu ku dhuuqayo, iyagoo dhammaantood shacbigu cila dhaygagaaye, dhalintii tahriib wada galeen amase dhoofeen. qalbigoodu u dhaawacmo wada dhaqaaqeeney, saxaaraha dhex qaadeen intii dhimaatay mooyaane, baarlamaan dharaar soo baxdo dhiran baa yimide. baarlamaan sidii dhoolguye dhifan baa yimide, baarlamaan sidii dhibicda roob dheef leh baa yimide, geesiyaal dhab ah oo dhaboo dhaartay baa yimide. dhaxantay ka qaadeen shacbiga dhadaadi sarnayde, laaluushkii waa kaa dhintiyo doqonti dhaadaysay, dhiiggaa shaqeeyo runtii dhibiyo ciile. dhulka dhacan markii ay arkeen duubta caaradiye, kii 9 naga dhacday maanta dhaaliyeene, bidda dharag dharbaxay u tahay keligii dhuqaaye. taariikhda dhinac bay galeen dahab ku dhehnaye, dembigood ilaah dhaaf ducay dhaxal u yeesheene, ilaahayow dhibaatiyo ka dhowr dhamacda nareed. afartaama dheeldheeliye dhowma kaaga siiyey, dhambaalkiyo fariintaan wadana dhayma kaa caddeeyey, ma dhammaynin waan sii dhexgeli ee dhegaysadaaye. dhacda aad u yaab badan haddaan ruuxa kaa hikaadsho, gaalkacyada wixii laga dhex riday waan la dhaacay jeere,
shacabkii la kala dhowrayee caraa ku dheeraatay shacbigii dhexdoodii la dhigay dhagaxyo waaweyne shacbigii dhufaysyada qayaxan laga dhex jeexayay dhinacyada kasoo didee sidii geeldhanan helay iyagoo ilmadu dhagagaclayn dhamanadoodaase oo dhaaxa kala raagay bay dhabisa siiyeeno dhunkashiyo damaashaadayay kor u dhawaaqeen dhaxay rakaala maalayeen dhadii hasheeniye dhaxay dhamiitiyo qaniin dhiiga jaaqayeene dhaxaa dhurwaagii casaadhayda loo shubaaye dhuntooda maanta la jaray dhiisha laga tuuray maanta dhunkaa loo qasiyo geed dhanaan badane ka dhaqaaqesay doonayeen una dhabowdeen dhaxaa ciidankeenii mushahar loo dhildhiilatayne dhaxaa midkii dhaawacmaba dhayma loo heline dhaxaa agoonkii dhintaba laga dhaqaaqayey maantay dhargayaan dhabtii dheefna heelayaane maantay dhaqaalaha u heli dhayli iyo wiige maanta midkii dhaawacmaba dhayma loo helin dhaxay dhufayskiyo cidlaba dhaxan la jiifeene maantay dharkii xiraanayaan dhaxal adoogoode maantay dalkii dhicinayaan dhinacyadiisii afartaanna dheeldheeliye dhowma kaaga siiyey dhambaalkiyo araartay lahayd dhayma kaa caddeeyey ma dhammaynin waa sii dhexgeli ee dhegaysadaaye dhegta furo farmaajow tix baan ku dhexgaalayaaye shacbigan la dhuun jaray aday ka dhursuugayeene dhalinyariyo waayeel aday kugu dhawaaqeen adiguna dhabtii waxaad u timid dhidhi iyo ciile dharag iyo haddaad doonaysaa dhaanso oo keliye iyaguba dhugbay leeyihiin kuma dhawaysteen dhexda xiro dharaar iyo hameenyaan la dheeliyiine dhinacyada haddaan laysla qaban way dhanqaalantaye dhan kastaba tashiiga waa inaad ula dhowataye ha yeeshee dhan kale waxaan ku odhan dhowrso waaligaye siyaasiga dhabtiinaanta jira waa dhurwaa falaane dhanka kale tigrebay intaa dabaaduhleyaane dhulka idil dharaar qura ayay dharag ka doortaane mid dhifaa ka dhiidhiya inaad dhiiqa lagu jiido dhan madow ayay galahayaan dhibicda taariikhe ninka dhiilka caanaha la yidhi haatan maad dhamiine mise qaalintaas dhali ayaad dhaxal usii qaadan oo dhiilka doorto isyidhi dharag hadeertaane dhaadhaan inuu yahay ayaa lagu dhaliilaye wax ka dhigan siyaasigan dhabtii qaran ka dhowraynin mid difaa ka dhiidhiya inuu dhiqadaas galaae dhaba toosan waa inaad martaa qaran ka dhowrtaye dhuniga ka dhowrsiyo inuu dhaawac magacaaga taariikh madiimatee ogow dharag tuwayoone taariikh madiimatee ogow dharag tuwayoone macnaha dharagtu waa hal maalin oo keli ah